nahay oo shirkan ka soo qayb galay hay'adaha maaliyadda ama World Bank ama IMF ee nagala shaqeeya arrimaha dhaqaalaha marti sharafta kale mas'uuliyiinta kala duwan iyo bahda saxaafadda dhamaantiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad guul weyn iyo farxad bay maanta inoo tahay in 4 sanadood oo hadda aynu ku jirno gabagabadeedii aynu marayno inaynu ka wada hadalno shir weynna aynu maanta u fadhino iyo toddobaadkanba lagu qiimeynayo khataraha ay leeyihiin lacag dhaqidda iyo argagixisada maalgelinta lagu sameynayo muddadii 4 sanadood ahayd hadda ay dawladdani jirtay xubnaha golaha wasiirada iyo hay'adaha dawladda kala duwan ka shaqeeya run ahaantii waa ka warqabaan halkaan ugu nimid iyo halka maanta ay gaarsiisan tahay wax badan baa 20kii sanadood u dambeeyay Soomaaliya u soo qabsoomayay haddana markii dawladdan la dhisay sidee baynu hore ugu sii qaadi karnaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga u xoojin karnaa siyaasadda horumar uga sameyn karnaa iyo arrimaha bulshada haddii aynu isniraahno aminta gaaban shirkan aynu u fadhino kaga sheekeeya shuruucda iyo siyaasadaha kala duwan ee golaha maray wasiirada maray golaha shacabka iyo aqalka saraba madaxweynuhuna sharci ku soo saaray lagu xakameynayo arrimahan oo dhanna wax lagaga qabanayo maanta dhan kama bixi karno laakiin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dhowr shay oo amnigii iyo dhaqaalihii waa isku xidhan yihiin siyaasadda iyo arrimaha bulshadu haba inoo dambayso laakiin mawduucan aynu ka hadlayno in lacag la dhaqayo oo inta waji kale loo yeelo dalka laga saarayo sidee loo xakameeyaa lagula dagaalamaa shuruucda u baahan in dalkaasi yeesha iyo qaab dhismeedka maaliyadeed ee uu yeeshaa maxay yihiin kow laba lacagaha sidaas oo kala ah iyagana la rabo in la soo geliyo oo si khaldan loo soo geliyo oo lagu maalgelinayo argagixiso amnigeennii kula dagaalamaya iyagana sidee loo xakameyn karaa labadaba waxaan isleeyahay shaqo fara badan baynu ka qabanay waynuna u baahannahay inaan ka sii shaqeyno sidaynu meeshan ka dheer u sii gaari karnaa waxaa ka mid ah sharciga maaliyadda oo goluhu xukuumadda iyo baarlamaankuba dhammaystireen waxaa ka mid ah shuruucda kale ee kaabaya maaliyadda lagaga shaqeynayo sharcigan money laundering-ka lagaga hadlo dhaqidda lacagta meelmarintiisa iyo hirgelintiisa shuruucda nidaam kalsooni ku dhisan oo maaliyadeed dalka ka hirgelinaya dhamaantii iyo kuwa amniga ee iyagana lagu xakameynayo sharcigii la dagaalanka argagixisada oo aan meel marinay golaha shacabkana uu gacanta ku hayo aanan filaynay inuu dhammaystiri doono insha Allah ama hadda ha noqoto ama wareeg waqtiga xiga ha noqoto iyo shuruucdii qofkan dalka gudihiisa khaasatan lacagtan la soo gelinaya ama la saarayo sidee qofka loo ogaan karaa cidda lacagtan leh qolihiina bangiyadu KYC baa u taqaanaan ama aqoonso garo macmiilkaaga adiga lacagta ku dhiganaya ama lacagta doonaya loo soo diray inuu la baxo marka waxyaabahaas oo dhan run ahaantii waan ka wada warqabnaa inaanu hadda soo ururinay meel fiicanna ay marayso nidaam maaliyadeed oo lagu kalsoon yahay oo ay ka mid ahayd mushahar bixintii iyo mushaharku u dhacaya lacag soo ururtii halku ku dhacaya nidaamka xisaabaadku ma yahay mid saxsan qofku account gaar ma leeyahay waa meelo dunida kale marka laga eego laga yaabo in wax weyn aan loo arag laakiin halkaynu ka nimid 4 sano ka hor iyo halka maanta aan joogno hadii la is yiraahdo qiimeeya oo daraaseeya maxaa qabsoomay halkeenu taaganahay run ahaantii waxa muuqatay in shaqo weyn oo ballaaran ee laga qabtay dhinacii amniga dubahabayn fiican lagu sameeyay oo ciidamadii iyo hay'adaha amniga iyo habkii maamulkooda hadda waxa wasiiradu ka hadlayeen raashinka qandaraaskii raashinka waa wax fudud marka dunida meel kale la eego laakiin haddana shaqo weyn laga qabtayo sidoo qandaraaska raashinku ku baxaya iyo wadada saxda ah ay tahay inuu maro iyo tenderkii loo baahnaa ma la maray hadda waa ka wada warqabtaan sida uu u shaqeeyo iyo habka isla xisaabtanka ah ee ay hay'adaha dawladdu uga wada shaqeeyaan halbeegyada ama tilmaamaha ugu waaweyn ee madaxweynuhu ballan qaaday 4 sanadoodna wax laga qabtay qabsoomeyna waxa kamid ah kalsooni dhiska
maanta lagu kalsoon yahay malaha waxaan u baahnay inaan ka shaqeyno intaan dakhligu soo gelin hay'adaha dawladda waa hubnaa hadduu dakhli soo galo hay'adihii dawladda account sax ah uu ku dhacayaa mushaharkiisa sax ah uu u baxayaa qandaraas hadday tahay sidii la rabay buu u baxayaa lacag systemka dhexdiisa ama habka maaliyadeed aynu leenahay maanta meel qaldan ku tagi karta ma jirto hay'adihii kale la kormeerayay hanti dhowrka guud iyo integrity-ga yani dhismaheedii xisaabaadkii guud iyo guddidii la dagaalanka musuqmaasuqa oo aan hadda dhisnay oo markay dhammaystiranta shaqadeeda qabsan doontay iyaguna waa kuwa kor joogteynaya eegaya systemka gudihiisii wax ma ku qaldameen waxse ma ku baxeen laakiin taa u baahan inaynu iyadana xoojino shaqada weyn ee kale aanu ka qabanaynaana waxa weeye intaan systemkii soo gelin wax halkeebaa wax ku leexan karaya waa meelaha u baahan iyaduna shaqada weynna ku socota in la sii saxo oo aragteen in garsoorka iyo hay'adaha fulintuba wax badan ka qabteen cid kastoo lagu tuhmay ama lagu helay in ay wax leexsan waxaan doonayaa markaa inaan u soo noqdo amnigii iyo dhaqaalihii way iskaabayaan oo haddii amniga la xoojiyo qofkan kaadhkii aqoonsiga uu leeyahay ee uu wax kula baxayay waxaa la xoojin karaa nidaamkii dhaqaalaha iyo maaliyadda ay u shaqaynayeen in la helo warbixin saxsan oo sidee loo xakameeyaa lacag dhaqidda loolana dagaalamaa maalgelinta lagu samayn karo ama lagu sameeyo argagixisadu waa shaqo weyn oo ballaadhan oo ay hay-aduna wax ka qabatoon uguna hambalyeynayo hay'adaha dawladda iyo hay'adaha caalamiga ee kale ee nagala shaqeeya nidaamka maaliyadeed iyo xisaabeed halbeegeenu markaa waa kalsooni dhis aan isleeyahay aaminsannahayna 4 sannadood in wax badan ka qabsoomeen usa baahan tahay in la sii adkeeyo meesha ka dheer aynu sii gaarsiino inagoo oo isu dhan hadday tahay hay'adaha dawladda kala duwan iyo hay'adaha maaliyadeed ee kale ama World Bank ha noqoto ama IMF iyo inagala shaqeeya arrimaha in nidaam hufnaani jiro karti iyo hufnaan karti lagu shaqeeyo hufnaani jirto oo ay hufan tahay shaqada la qabsanaya iyo isla xisaabtan la iskula xisaabtamayo wixii la qabtay iyo waxa qof kastaaba ay tahay inuu qabto qiimeyntaas iyo shaqada ay sanad iyo dheeraad warbixinta ay hay'adani ka shaqeynaysay oo runtii in badan dawlad ahaan aanu la soconay kana wada shaqeynayay wasaaradda maaliyadda iyo hay'adda iyo wasaaradaha kale ee ku shaqada lehna aan hubeyno wax badan ka shiri jireen kana shaqeynayeen bil kasta iyo toddobaadlaba guddida dhaqaalaha ee golaha wasiiradana warbixino hufan lagu soo bandhigi jiray golaha wasiirada qudheeda lagaga warbixin jiray waan ugu hambalyeeynaya shaqada wanaagsan ee hay'addu soo qabatay wasaaradda maaliyadda wasaaradaha la shaqeeya kalena ay soo qabteen arinta kale iyadana muhiimkii waa taa bangiyada iyo habka ay u shaqeynayaan iyo sida loo controlayo cidda dhigata lacagta iyo cidda lacagta kala baxaysa iyo lacagta la dhiganaya ama la baxaya siday ku soo gashay iyo halka ay tagayso inaynu iyadana hubino kalsoonida aynu dhisaynaa waxa ay keenaysaa in dalkeenu maantana runtii meel fiican buu marayaa uu noqdo dunida halkii aynu kaga jiri jirnay iyo wadamada aynu ka mid noqono lagu kalsoon yahay habkooda maaliyadeed dhibaatada ugu yar wax weyn aan ahayn laakiin inaga aad inoogu weynayna haysataa maanta waa maxay bangiyada iyo isticmaalkoodii na ay ka cabanayaan oo waa habka lacagta ay ku imanayso kaashta dalkeena oo inoo ognahay bangigii dibadda ma u furan yahay oo wax ma u diri karaa toos iyadoo waraaqii iyo habkii wax la isugu gudbinayay la isticmaalayo waxna toosna lacagtii iyadoo lagu soo qaadin shandado ma ku iman kartaa meelaha warbixintani wax ka tarayso kalsooni dhiska nidaamka maaliyadeed ee xisaabeedna oo wax ka taraya waxa weeye inaynu soo celin karno ganacsigeennina ku kobcayo in letter of credit-ka ay shaqayso oo aan cash halkan aad ka qaadid iyo cash haddii la soo xawilaya ama bankiga lagu soo qaadayo aad ku soo qaado shandado oo kharash ku baxayo oo riskkeeda leedahay khatarteeda iyaduna leedahay dhaqaale kaga baxaya ganacsatadii ay badan ka faa'iidin lahaayeen inaynu kalsoonida abuurnaa nidaamkeeda maaliyadeed hufnaada si hufnaa waxa ay keenaysaa inaynu kaga maaranno caqabadaha hadda bangiyadeena haysta ganacsatadeena haysata marka waa waajib in wada saaran halbeegyada waaweyn ee nidaamkii xoojin kara inaynu ka shaqeyno oo isla xisaabtankaasi kow ka yahay la dagaalanka musuqmaasuqa kalsooni dhiska aynu ka sheekaynay muhiimka ah muwaadinka Soomaaliyeed iyo cid kasto bangiyadeena macaamil leh in aqoonsi ay leedahay iyo raad raac
akoonkiisa la raadraaci karo sharcigii isgaarsiinta ayaa ka mid ahaa meelaha xoojinta waxa lagu aan ka shaqeyno sharcigii ugu horeeyay ahaa la garan karo qofkan akoonka leh mobile-ku waa kuma ileen mobile money-ga waa inuu isticmaalnaa aad baana loo isticmaalaa lacagtan la isugu dirdirayo ma la raadraaci karaa qofka soo diray ma la garan karaa meeshay saxdahay ku dhacayso waxyaabahaas oo dhan kalsoonida aynu dhisnay si dhisideeda iyo xoojinteeda ayay qayb weyn naga daraysaa dabadeedna xaruntii warbixintii ay sameeynaysa gudo iyo dibadba waxay ahaanaysaa mid si hufan waxay la tahay waa ogaan doonaa warbixinta ay soo wiilasha iyo gabdhaha iyo hay'adaha kala duwan iyo wasiirada iyo hay'adaha dawladda ka shaqeynaya ay soo bandhigi doonaan meel wanaagsan baan aaminsanahay inaynu marayno waan ugu hambaleynayaa sanad iyo barka warbixinta aad ka soo shaqeyseen oo soo bandhigi doontaan oo qabateen iyo urur goboleedka aynu ka tirsannahay warbixinta 2024 aanu rabno inaynu geyno oo aaminsanahay haddii 4 sanadood xawligaynu aragnay aynu ku soconnay halkaynu maanta joognana ilaahay mahadi ku soo gaadhnay siyaasad hufan iyo aragti fog na ku dhisnayd maxay ku timaadaa Soomaalidu geel duq baa loo tumaabay tiraahdaa dadkuna dhaqan labaadna waan leenahay oo dad midaysan oo wada jira laakiin haddana garba siman afka qalaad waxa lagu yiraahdaa egalitarian society hogaamiyuhu waa first among equals dad siman ayuu hogaamiye u yahay nidaamkan Soomaali is ogolkaas hogaamiyuhu odaygay noo yahay geela duqa loo tumanay noo yahay haddii isagu uu dhiso hab hufan oo kalsooni ku dhisanna dadku waa indha ku garaad leh annaasu maca diini mulukihim culimada ay noo sheegaysa ma xadiis ba mise waa mahmaah carbeed ya laakiin waa xaqiiqo dhabo oo jirta ya waa tii geeleeda Soomaalidu sir geel duq baa loo tumaa soo maaha hadduu duqu hab wanaagsan u dhaqmo geela kale oo dhan waa daba raacaya anuu 4 sanadood waxaan qirayaa madaxweyne Farmaajo in hufnaan iyo isla xisaabtan iyo banyaal iyo la dagaalan musuq dalkan uu ka hirgeliyay intayadii yaryaraydna odayga oo ahaana waa ku dayano sidiisii baan u shaqeynaa haddii mid damac khaldani ku jira nagu jiri lahaa ila duqi baa laga baqanayaa la isleeyahay arma af libaaxad gashay marka 4 sano haddaan xawliga ku soo soconnay waxaan hubaa meel ka dheer inaynu gaari karno 2024 marka hanagala bakhaylina inaydu mar dambe kalsoonida ay aaminka aadna siiseen aadna siisaan si dalkan meel ka dheer meeshu gaari aanu si gaarsiin waa mahadsantihiin shirku waa inoo furan yahay waa idin salaamayaa dhammaantiin waan u hambaleynayaa xarunta iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiirada guddida ka tirsan iyo shaqaalaha lafdhabarta oo ah wasaaradda maaliyadda runtii Jacfar iyo rag badan oo marar badan ay ka mid yihiin iyo gabdhaba iyo bangiga gudoomiyaha dhammaantiin shaqo fiican baa qabateen anigu 4 sanaba si dhow baynu xoogaal isugu ahayn inuu wada shaqeynaynay maanta halkaynu soo gaadhnay ilaahay fadligiisa kasako idinkaas sabab u ah lafdhabar oo ahaa aasaasna oo ahaa shirku waa inoo furan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hambalyo